halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa duhurnimo Arbaca 13 bisha Febraayo sanada 2019. arrimahan barnaamijka duhurnimo idinku haynana waxaa kamid ah midowga Afrika oo dalalka iyo hay'adaha deymaha kule Soomaaliya ugu baaqay inay ka cafiyaan madaxweyne Trump oo xildhibaan Ilham Cumar ugu baaqay inay iska casisho xilka Congress-ka waddanka Mareykanka. meydka wiil Soomaaliya oo la sheegayo in muddo 10 maalmood uu yaal mid kamid ah isbitaalada Hanover ee waddanka Jarmalka. hadba maxaa kamid ah maxaa loo aanaynayaa dhimashada wiilkaasi? walaa dhimashadiisa waxaa loo aanaynayaa wiilkan inuu xanuunsaday ka bacdina qoliyaha xabsiga gacanta ku hayo waxay u soo qaadeen isbitaalka weyn caafimaadkiisa loogu dabiibo ka bacdina laba bari ka bacdi uu ku dhintay. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Ciise Xaaji Cabdullaahi anigoo Cabdi Ibraahim Cagay ee la socodsiinayo. balse marka hore barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Faadumo Taxadir Yuusuf. Faadumo, aad baa mahadsantahay Cabdi. doorashooyinka ee Thailand ayaa ku talisay in la kala diro xisbi siyaasadeed soo gudbiyay magaca qof ka tirsan qoyska boqortooyada inuu yahay musharaxa ra'iisul wasaarnimada, wuxuuna ku tilmaamay in soo gudbinta magaca Amiirada Alberto ay tahay arrin cadaawad ku ah dastuurka waddankaasi boqortooyadu xukunto. magacaabista gabadhaasi ayaa la joojiyay kadib markii uu boqorka Thailand u arkay in aysan habboon. xukuumadda Australia ayaa lagu wadaa inay dib u furto xarunta muranka uu ka taagan yahay ee jasiiradda Christmas ee dadka lagu xirxiri jiray si ay ula tacaasho baleeyada tirada dadka sii badanaya ee magangeliya doonka ah. Ra'iisul wasaaraha Scott Morrison ayaa hadalkaasi jeediyay kadib markii ay xukuumaddu guuldarro kaga timid dhinaca sharciga socdaalka. Kerry Phillips waa dhaqtarad baarlamaanka ka tirsan waxayna taageersan tahay sharcigaas. What we've done here is to ensure that the seriously ill people who are managed. waxaan halkan ka sameynay ayaa ah inaan xaqiijino in dadka sida aadka u xanuunsan ee ku jira jasiiradda Manus iyo Nauru ee aanan heli karin daaweynta ay u baahnaayeen in la daaweeyo waqtiga ay u baahan yihiin. ilaa hadda boqolaal kiis ayaa ku guuleystay in loo gudbiyo maxkamadda. dadka ayaa u dagaalamaya noloshooda iyagoo adeegsanaya maxkamadda si ay u helaan daaweyntii ay u baahnaayeen inta ay joogaan Australia. tanina ma aha mid loo sii dulqaadan karo. This just is not a situation that could be tolerated any further. shaqaalaha warshadaha ku shaqeeya nukliyeerka ee Fukushima ee dalka Japan ayaa bilaabay isku daygoodii ugu horeeyay iyagoona isticmaalaya aalada robotka ay ku soo taabanayaan qalabkii ugu horeeyay shucaaca radioactive-ka ee ku dhex jira mid kamid ah haamaha waaweyn ee warshada. waa tallaabo muhiim ah oo lagu ogaan karo in qalabkaasi uu yahay mid la soo saari karo oo aan cidna waxyeello u geysan doonin. xafiiska madaxweynaha Koonfur Korea ayaa beeniyay sheegashada madaxweyne Trump ee ah in Seoul laba jibaarayso aandhehe qaybta kaga soo aadan qarashka ciidamada Mareykanka ee la geenayo Kuuriyada Koonfureed. afhayeenka ayaa sheegay inaysan jirin wax si buuxda la iskula afkartay. ugu dambeyntiina madaxweyne Trump ayaa sheegay in markii ugu horeysay uu ka baarandegayo in la sii kordhiyo waqtiga kabandabeyska ah ee heshiiska arrimaha ganacsiga Chinaha ee bishan Maarso. taafooyinka la saaro alaabta laga keeno Chinaha ayaa lagu wadaa in 25% la kordhiyo haddii heshiiskaasi la isku afkarto. aad u mahadsan tahay Faadumo Taxadir Yuusuf ay taasi ahayd oo inala socodsiinaysay wararka caalamka. halkaad kala socotaana waa BBC dhageystayaal diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aanu ku bilownay midowga Afrika ayaa dalalka iyo hay'adaha deymaha ku leh Soomaaliya waxa ugu baaqay inay ka cafiyaan. arrintan ayaa qayb ka ah galaangal ay Soomaaliya ugu jirtay sidii looga cafin lahaa deynta lagu leeyahay oo gaaraysa ilaa $2 bilyan oo dollarka Mareykanka. midowga Afrika ayaa baaqan soo saaray kadib shirkii madaxda ay halkaasi ku yeesheen dhawaantan magaalada Addis Ababa iyagoo sheegay intaasi ay Soomaaliya u fududeyn doonto
inay hesho dhaqaale ay wax kaga qabato adeegyada ijtimaaciga. haddaba warbixinta umuurtaasi ku saabsan iyo waxa ay arrintan uga dhigan tahay Soomaaliya waxaa inoo diyaariyey Faarax Lamaane. dowladda Soomaaliya waxay hore uga codsatay deyn-bixiyayaasha inay ka cafiyaan deynta ay ku leeyihiin si ay ugu suura gasho inay hesho dhaqaale ay kula dagaasho kooxaha ka soo horjeeda. qiyaasta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya ayaa waxaa lagu tilmaamaa ilaa iyo 4 bilyan oo dollar. intooda badanna waa dulsaar iyo ciqaabo ku socday muddadii 30 sannadood ku dhoweyd ee lagu lahaa deynta laga soo bilaabo markii xukunka laga tuuray dowladdii militariga 1901. qaaltaas ayaa waxa ay ka dhigtay mid aan suuragal ahayn in xukuumadda Muqdisho ay u suura gasho in dhaqaale ay ka hesho IMF-ta ama hay'adda caalamiga ee horumarinta bangiga adduunka u qaabilsan deymaha jilicsan ee loo ogol yahay dalalka Soomaaliya oo kala ah. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali rantii sanadkan u waramayay wargeys reer gal waxa uu sheegay in miisaaniyadda xukuumaddiisa aanay ku filnayn in ay ku abuuraan barnaamijyada arrimaha bulshada ee aadka loogu baahan yahay si looga hortago duufsiga dhalinyarada baagamuundada ah ama lagu fuliyo adeegyada aasaasiga ah. ma aanu xaqiijin qiyaas uu sarkaal banka adduunka ka tirsan ku sheegay in miisaaniyadda al-shabaab ay ka badan tahay tan xukuumadda, laakiinse waxa uu yiri teen waa miisaaniyad yar oo loogu talagalay dal ay ku nool yihiin 10 milyan oo qof. in argagixiso lala diriro waxay u baahan tahay buu yiri dawlad wanaag. taas micnaheeduna waa in dadka loo qabto adeegyo, taasina lacag ayay u baahan tahay, waana sababtaas midda aan baahida ugu qabno taageerada beesha caalamka ayuu yiri. Soomaaliya waxa ay dadaal dheer u gashay in deynta lagu leeyahay laga cafiyo, laakiin sarkaal ka tirsan hay'adda IMF-ta waxa uu leeyahay waxa muhiim ah in dalku uu sameeyo isbeddello muhiim ah iyo in la dhaqan geliyo siyaasado lagama maarmaan ay tahay in la helo, walow uu dhanka kale sheegayo in arrimahaas horumar laga sameeyay. madaxa hay'adda Atlantic Council qaybteeda qabilsan arrimaha Africa Peter Pham ayaa waxa uu sheegayaa in hay'adaha kala duwan ay ku saxsan yihiin in ay dareen ka qabaan ka hor inta aanay lacag ku qarqin Soomaaliya. waa arrin hore loo soo arkay ayuu yiri oo laabla kac noqon karta in beesha caalamku ay si xiisa leh ula dhacaan xukuumadda Soomaaliya, waxaana inta ku sii daray inaan ku qarqinin dalka wax ka badan awoodiisa. waxa uu qirtay in xukuumaddu ay horumar samaysay, laakiinse waxa uu sheegayaa in musuqa aan weli la xakamayn. lacago aad u badan oo kaash ah oo kaalmo loo siiyo ayaa la waayaa ayuu yiri, wuxuuna intaa ku sii daray inuu shaki ka qabo in 27,000 oo askari oo mushaar ku qaata inay la dagaalamayaan al-shabaab ay yihiin askar aan jirin. sidaas oo ay tahay midowga Afrika waxa uu dambixiyayaasha qaanta ku leh Soomaaliya weydiistay in Soomaaliya laga cafiyo gabi ahaanba deynta lagu leeyahay nooc kasto ay tahay si wadanka ay suuragal ugu noqoto inuu kaalmo dhaqaale helo. waxa kale oo ku baaqay in dardar la geliyo xiriirka dhanka maaliyadda ee Soomaaliya. tallaabadan ayaa waxa ay noqonaysaa hiil siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo Soomaaliya ay ka heshay halkii ugu sarreysay. waxaase muhiim ah in isha lagu hayo qaabka ay deyn-bixiyayaasha deymaha ku leh Soomaaliya uga jawaabaan baaqan ka yimid hay'adda ugu sarreysa hagidda siyaasadda qaaradda Afrika. Faarax Lamaane aad ayuu mahadsan yahay. haddaba Facebook ay dhegeystayaal badan raygooda kaga soo dhiibteen warbixintaasi, intooda badan waxa ay taageerayaan warbixintaasi oo maanan argacid hareer marsan oo diidan. haddii aan haddaba mid iyo laba soo qabto, Nuur Dilaa Cabdi Cabdilaahi oo jooga magaalada Boorama waxa uu leeyahay waxaan soo dhaweynayaa hadalka ka soo yeeray midowga Afrika ee ah in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay, waana tallaabo ka dhalatay dadaal dheeraada oo dawladdu ay u gashay sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. Maxamed Cawil Axmed Boosaaso ka soo qoray wuxuu leeyahay runtii waa wax aad loogu farxo hadalka ka soo yeeray midowga Afrika in dalalka Soomaaliya deymaha ku leeyahay cafiyaan, waayo Soomaaliya waa dal soo koraya oo u baahan in laga dhaafo deymaha maadaama uu wajahayo culeysyo badan. waxaana rajaynayaa in baaqa midowga Afrika ay aqbali doonaan dalalkaasi. haddaba dhegeysta haddii aad ra'yi midka ka duwan haysid bartina Facebook ay noo soo dhig, hadday noo soo gashayaan oo soo gudbin doonaaye. halkaad in nagala socotaan oo BBC saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 2:09 daqiiqo gawa. warbixinada kale ee noo soo socdaan waxaa kamid ah dowladda Australia oo sheegtay inay dib u furi doonto xeradii muhaajiriinta ay ku taalay jasiiradda Christmas. maxaa ku dhaliyay barnaamijkaas ku maqli doontaan, balse markan madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ugu baaqay xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareeska waddankaasi inay iscasisho. baaqa madaxweynaha ayaa imanaya kadib hadallo Yuhuud nacayb ah oo laga sheegay in Ilhaan ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka. Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in xildhibaanada aqalka Kongareeska ee taageersan Israa'iil ay dhaqaale ka helaan kooxaha taageera Yuhuudda, arrintaasi oo sababtay in gudoomiyaha Kongareeska Nancy Pelosi ay ka dalbato Ilhaan inay raaligelin buuxda arrintaasi ka bixiso.
haddaba faahfaahinta warkan waxaan goorna weydiiyey waryahayaga Bashir. madaxweyne Trump oo ka jawaabaya hadal bartay Twitterka ku qortay Ilhaan Cumar ayaa waxa uu ugu baaqay Ilhaan inay iscasisho ama ay isaga baxdo guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Koongareeska. Waxa uu madaxweynaha sheegay in Yuhuud nacaybka dadka aaminsan meelna aysan uga banaan waddanka Mareykanka. Marka Bashir oo ilaa haatan Ilhaan Cumar baaqaas uu soo jeediyay madaxweyne Trump wax warmiyay ka soo saartay. inkastoo cadiftaxa waddanka Mareykanka iyo Afrika waqtiga marka la yiraahdo ay kala duwan yihiin oo xilligan Mareykanka uu tahay xilli habeen haddana ilaa imika ma jiro wax war rasmi oo ka soo baxay Ilhaan Cumar balse waxaynu ognahay inay ka jawaabtay baaq uga soo yeeray afhayeenka aqalka Koongareeska waddanka Mareykanka Nancy Pelosi oo sheegtay in Ilhaan Cumar looga fadhiyo in hadalkii ay tiri raaligelin ay ka bixiso. Marka waynu sugi doonaa saacadaha soo socda bal waxay ka tiraahdo hadalkii madaxweyne Trump. faahfaahinta warkaasi oo inta ka dheerna waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga dambe hadduu ay baydmo halkaad weli nagala socotaanna waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. ciyaarihii ayaa inoo soo socda oo weliba aanu ku eegi doono guuldaradii xalay soo gaartay kooxda Manchester United oo weliba garoonkeeda Old Trafford lagaga adkaaday balse markan dowladda Australia ayaa waxa ay sheegtay inay dib u furi doonto xerada muhaajiriinta ee ku taal jasiiradda Christmas si ay wax uga qabato suuragalnimada qulqulka dad magangeliya doona. arrintan ayaa timid kadib markii wax laga bedelay sharciga kaas oo dhakhaatiirta u ogolaanaya inay go'aan ka qaadan karaan in qaxootiga ku xanuunsanaya xarumahaasi lagu soo dabiibi karo gudaha Australia. arrintaas oo dowladda Australia diidan tahayba. faahfaahinta intaasi dheer wariyaha BBC-da Joel Griffiths ayaa inoo diyaariyay waa kan Mucaawiye Maxamed Buraale. ku dhawaad 1,000 qof oo isugu jira dad magangeliya doon ah iyo qaxooti ayaa lagu hayaa 2 xarumood oo ku yaala jasiiradaha Manus iyo Nauru ee dalka Australia. shalay dowladda Australia waxay lumisay cod go'aan looga gaaray in loo baahan yahay in dadka magangeliya doonka ee Australia soo gaaraan iyagoo daweyn caafimaad raadinaya in kale, taasoo markii dambe horseeday wasiirka uu ku andacoodo in dad dambiilayaal ah oo isugu jiro dad dil iyo kufsi soo geystay in hadda ay helaan waddo ay dalka kusoo galaan. ra-iisul wasaaraha Australia waxa uu ku andacooday in arrintan ay horseedayso qulqulka muhaajiriinta. waxa uu amar ku bixiyay in dib loo furo xarunta lagu hayo dadka soo galootiga ee cusub ee jasiiradda Christmas. Mucaawiye Maxamed Buraale aad ayuu mahadsan yahay. halkaad weli nagala socotaana waa BBC. saacaduna haatan waxa ay tilmaamaysaa 2:00 iyo 12 daqiiqo iyo 17 ilbiriqsi. markanse in ka badan 10 maalmood ayaa waxaa lagu soo waramayaa in mid ka mid ah isbitaalada magaalada Hanover ee waddanka Jarmalka uu yaal mayd la sheegay inuu yahay wiil Soomaaliya. madaxda isbitaalkaasi iyo kuwa jaaliyadda Soomaalida ee magaaladaasi ayaa waxa ay wadeen dadaallo ay ku baadigoobayaan ehelada wiilkaasi walow ilaa haatan aanay arrintaasi u suuragelin. haddaba si aanu faahfaahin dheeraad uga helno arrinkaasi ayaa waxaanu ka wareysanay oo khadka telefoonka kula xiriirnay Axmed Maxamuud Salaad oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Hanover ee waddankaasi Jarmalka. wax uu waramay wariyahayaga Cabdiraxmaan Cali. walaal ninka Allah u wiilka dhalinyarada Soomaaliyeed magaciisa uu waddanka ku joogo waxa la yiraahdaa Abdullahi Yusuf. wuxuu dhintay muddo adigu 10 bari laga joogo, haddana wuxuu ku jiraa isbitaal ku yaal magaalada madaxda Hanover oo laga dumiidkiisa. marka talow maxaa dhimashadiisa loo aaneynayaa? walaal dhimashadiisa waxaa loo aaneynayaa wiilkan inuu xanuunsaday oo xanuun caadi ah oo dadka bilaadanka xanuunada ku dhaca oo hayay oo la xanuunsaday kabacdina qolyaha xabsiga gacanta ku hayo baa waxay u soo qaadeen isbitaalka weyn caafimaadkiisa loogu dabiibo. kabacdina 2 bari kabacdi uu ku dhintay. booliiskii iyo dowladda midna faahfaahin inta dheeri anaga namaysin waayo waxay qabaan dadkii ehelka u ahaa oo hawshan qudigaha u ahaa si ay xogta intaas wixii ka dheer ay siiyaan. waxaad sheegtay in meydkiisu talaagad ku jiray, miyaanu ahayn qof la yaqaanay oo markii hore magaaladeeda la joogay? walaal haddii aan ku soo koobo ninkan markii hore waddanka Jarmalka wuxuu ku dhaqan yahay muddo 3 sano ilaa 3 sano iyo bar ah. markii hore wuxuu ka yimid ninkan Spain buu halkaa wuxuu ka soo qaatay sharciga qaxootinimada oo Yurub ay bixiso. kabacdi halkaan markuu yimaado 3 sano sharci maysan Jarmalka laakiin sharci yar ku meel gaar ah siiyeen oo intaas waxay lahaayeen waa ku celeeleyna ma ahayn nin adigu dadka si fiican ugu dhex jiro oo waxa weeye ama dadkiisa ama ehelkiisa ama saxaabtiisa ama walaalihii dadka baray. marka sidaas keentay inaan loo aqoon. markaa ma malayn kartaan deegaan ahaan meesha uu markii hore ka yimi iyo halka ehelkiisa loogu hagaagi karo?
walaalow meelo kala duwan buu ninkan sheegtay gobolka mudug nugaal nima ay isku dhawaayeen oo dadka hadda la yiraahdo aad bay isku dhawaayeen oo aan xalayda waxa la hadlayay oo amaan laba jeer hor la fariistay oo dadka adugu aan ahayn sida fiican nolosha u raacay wuxuu ii sheegay inay macquul tahay inay hooyadiisii ay ka soo jeedo cabowga oo ugu tilmaamay buu yiri mar oo halkaas oo wax u dirdiri jiray bari hore oo 2016 halkaas marar lacag yar u diri jiray buu yiri xilli oo roona marka hawriyadiisii halka ka soo jeedo buu igu yiri laakiinse ninkan deegaan ahaan meeshuu waa ka soo jeedaa waa gobolka mudug iyo adigu nugaal inta u dhaxaysa meelahaas baan ka soo jeedaa marka hadiiba la waayo ehelkiisii ama cid garanaysa maxaa idin la gudboon ama xal ah walaal anagu jaaliyad gaar ahaan jaaliyad Soomaaliyeed ku noqon gobolkaas iyo magaalada madaxiisa waxa naga go'an inaan ruuxda badan waxa weeyaan u asturno marxuumka waa wiilkayga waa ehelkaygi marka waxa weey taas anaga meesha joogna anaga hawshaas tabaano qaadan inaan sida ugu ruuxda badan aan u asturno waatahay kaasi waxa uu Ahmed Maxamuud Salaad gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Hannover ee wadanka Jarmalka waxa uu waramayay wariyaha Cabdiraxmaan Cali Dhimbil halkaad nagala socotaana waa BBC ka dhageysa BBC Somali mobile-kaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com shaka xiisa badan ayaa inoo soo socota ku nool wadanka Japan waxa ay xanaanaysan jireen geedo ay ku talaaleen meel ashuna geedihii baa laga xaday baaq bay jeedinayaan baaqu muxuu ahaa barnaamijka ku maqli doontaan qaybaha dambe balse markan 6 bilood ee la soo dhaafay waxa deegaanka Soomaalida ee wadanka Itoobiya ku soo badanayay ganacsiga sharci darrada ah sida BBC-da u xaqiijisay maareeyaha wakaalada dabagalka dawooyinka iyo cunada ee deegaankaasi ayaan Cabdishukri Ahmed waxay sidoo kale ayaan sheegtay in raashin iyo dawooyin dhacay ay soo galeen magaalada Jigjiga balse ay ku daba jiraan cidda keentay iyo meelaha la dhigayba hadaba ayaan Cabdishukri ayaa umurtaas waxa ugu warantay wariyahayaga magaalada Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam 6 bilood u dambeysay wadooyinkii baa furmay ay ka soo galayeen waxyaabaha sharci darrada ah dadkii baa isku socodkoodii batay oo waxyaabo aad u fara badan oo cuntooyinka iyo dawooyinka la xiriira ha ahaatee haddana goobihii lagu dejiyo iyo meelaheeda waan daba soconaa waan ku daba jiraa bakhaaradeedii iyo dadkeedii wali ay jiraan dad sharciga loola tiigsan doono kolkii lagu qabto waxyaabaha si daran maxaa kamid ah waxyaabahaas aad sharciga la tiigsan doontaan ee bulshada aad ugu daran ee kontrabanaanta lagu soo geliyo waxaa kooka sharaabyada ama cuntooyinka dhacay ayaa kooka ولون هذا بحلي ميلو شراب دعي أنا كسر هلو وليون يسوق هذا صاق له أنا هليون هذا صاحب نباشرة دوين كوكلة تيجنا وحيابه وحشرة أنا لود القاضي كرنا دبعت الشعب وهي يجونا كعافية مع ذهان مرة قواسنا يجونا وجابه هذا كسر حنا يكسر تجينين كتربان ناتو حتى إن دتكو أيات ووحشكتان هركبيو يعذرات كوران لاقونين ملقي أبا مركارين تاسين السبب طاي كل عذرات وكلا جار هركب كوحة كانوا هوذا waxyaabaha isbedelka cimilooyinka iyo waxa isku yimaada iyo waxyaabo deegaanku gaar u ah kolka ama board ama wax meel kacay sida cudurka loo yaqaan asayniska kale oo goobaha sanboorka iyo waxa laakiin waxyaabaha u badan ee uga shaqeysana xanuunyada hadda jira haday noqoto hooyooyinka uurka leh saameynta ay ku hayso taasi waxay ayaan Cabdishukri Ahmed maareeyaha wakaalada dabagalka dawooyinka iyo cunada ee deegaanka Soomaalida ee wadanka Itoobiya waxa uu warramay wariyahayaga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam halkaad weli nagala socotaan waa BBC sheekada xisaab badneed ayaa inoo soo socota balse markan ciyaari haddii aan eego kooxda Paris Saint-Germain ayaa xalay waxay guuldaradii ugu horeysay dhabarka u saarisay tababaraha cusub ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kaasoo noqotay guuldaradii ugu horeysay oo soo wajaho 2-0 ayaa looga badiyay waliba waxaa sii dheeraadin ciyaaryahanka laacibka ee Paul Pogba laga saaray ciyaarta oo kaarka gududan loo taagay daqiiqadii ugu dambeeyay sidoo kalena xalay Roma ayaa guul gaartay oo 2-1 waxay kaga adkaatay kooxda Porto caawan waxa dhici doona kulmo ka tirsan koobka Champions League oo Tottenham waxay ka hortagaysaa kooxda Bundesliga waxay ka hortagi doontaa kooxda Borussia Dortmund halka kooxda kale Ajax iyo Real Madrid ay wada ciyaari doonaan ciyaarihi hadii aan inta kaga gudbo markan aan eego laba qof oo ku nool wadanka Japan ayaa waxa laga xaday geedo ay aad u xanaanaysan jireen oo aad u jeclaayeen oo lagu magacaabo bonsai geedahaasi oo 7 gaarayay ayaa waxa lagu abuuray markii hore ashuun ama dhoobo dadkii lahaana way ka xadeen oo tuuga qaadatay tuugadii bay baaq u direen waxay ka codsadeen dib ugu soo celiyaan Cabdinaasir Saxan cabdifitaax waad mahadsantahay waxaa la yiri miro qaayay warka oo dhan duuduubka ugu sii geedahani waa geedo aad qaali ah midkiiba 13 milyan oo yin
shilinka jabaanka oo u dhiganta $118,000 400 oo sano ayay geedahani jiri karaan waana geeda sharaxaad loogu talagala ashuun ama dhoob ayaanay ku jiraan 7 geedo oo kamid ah ayaana laga xaday lamaanahan oo isqaba oo waayeel oo xanaanaysta waana qaali baa tiri aad bay qaali u yihiin adduunka oo dhan dadka xanaanaysta ayaa hadda fariimo kala duwan social media ama baraha bulshada soo dhigaya oo dhaleecaynaya waxay leeyihiin xitaa ma aha dambi la cafin karo ma laga yaabo marka baaqa in ay ogolaadaan oo ay xanaanayaan geedaha ama ay dib ugu soo celiyaan dadkii Cabdifitaax adigoo og sida Soomaalida ay dharta u jirto iyo sida aanan loo tixgelinin dalkani ama dadkani waxay leeyihiin geedahani aad bay muhiim u yihiin mana aha xitaa wax bedeli karaan waa tahay aad baad mahadsan tahay Cabdinaasir saxan soo ayuu kaasi ah oo faafaynta warkaasi ina siinay markanse baafintii baafinta waxaa si wada jir ah stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiira Cabdullaahi Jaamac mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysa maanta waxa ay naga soo gaartay Daaro Cusmaan Cafi oo jooga xerada qaxootiga ee Kobe waxa uu baafinayaa Abuukar Sheekh Cusmaan waxa uu dambeysay isagoo ku sugan Baardheer Soomaaliya sanadii 2009 hadaba hadii uu maqlayo Abuukar Sheekh Cusmaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Daaro Cusmaan Cafi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Kobe Filsan Aadan Jeelle oo boqol maay waxay baafinaysaa Axmed Aadan Jeelle waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho 2004 hadaba hadii uu maqlayo Axmed Aadan Jeelle ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Filsan Aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boqol maayo ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 259 Isaaq Ibrahim Isaaq oo jooga xerada qaxootiga ee Kobe waxa uu baafinayaa Soodo Xuseen Xaaji waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Ceyrgaabo sanadii 2008 hadaba hadii ay maqlayso Soodo Xuseen Xaaji ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Ibrahim Isaaq iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Kobe Axmed Yara Baaqi Culhaye oo jooga boqol maayo waxa uu baafinayaa Dhaqan Ibrahim Aadan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Muqdisho 1991 hadaba hadii ay maqlayso Dhaqan Ibrahim ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Axmed Yare iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boqol maayo Isaaq Maxamed Xasan oo jooga xerada qaxootiga ee Kobe waxa uu baafinayaa Ismaaciil Macalin Cadow waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Nairobi sanadii 2011 hadaba hadii uu maqlayo Ismaaciil Macalin Cadow ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Isaaq Maxamed Xasan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Kobe Saleebaan Saciid Cali oo jooga boqol maayo waxa uu baafinayaa Hodan Saleebaan Saciid waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Muqdisho 2006 hadaba hadii ay maqlayso Hodan Saleebaan Saciid ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Saleebaan Saciid iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boqol maayo Raxma Cali Xasan oo joogta xerada qaxootiga ee Kobe waxa ay baafinaysaa Cabdi Cali Xasan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Diinsoor sanadii 2011 hadaba hadii uu maqlayo Cabdi Cali Xasan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Raxma Cali Xasan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee qaxootiga ee Kobe Maxamed Cabdullaahi Gaabo oo jooga Buraamina waxa uu baafinayaa Nuur Maxamed Cabdullaahi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Gaarisa 2001 hadaba hadii uu maqlayo Nuur Maxamed Cabdullaahi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maxamed Cabdullaahi Gaabo iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Buraamino Nuur Isaaq Nuur oo jooga xerada qaxootiga ee Kobe waxa uu baafinayaa Muslima Cabdi Macalin waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Diinsoor sanadii 2000 hadaba hadii ay maqlayso Muslima Cabdi Macalin ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Nuur Isaaq Nuur iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Kobe Xabiibo Cabdi Birka oo joogta Kobe waxay baafinaysaa Madiina Cabdi Birkaan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Diinsoor 2010 hadaba hadii ay maqlayso Madiina Cabdi Birkaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Xabiibo Cabdi Birkaan iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kobe
nuuriyo isaaq cabdi oo joogta xerada qaxootiga ee koobe waxa ay baafinaysaa maxamed macalin xasan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan daar es salaam sanadii 2010 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed macalin xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo nuuriyo isaaq cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee koobe. isaaq cali ibraahim oo joogo koobe waxa uu baafinayaa raxma cali maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan degmada luuq 2000 haddaba haddii ayna maqlayso raxma cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo isaaq cali ibraahim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay koobe. jawhara cali miidi oo joogta xerada qaxootiga ee koobe waxa ay baafinaysaa xakiimo maxamed mursal waxa uu ku sugan degmada luuq sanadii 2000 haddaba haddii ay maqlayso xakiimo maxamed mursal amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo jawhara cali miidi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee koobe. udugow ibraahim isaaq oo jooga koobe waxa uu baafinayaa maxamed ibraahim aadan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan garowe 2005 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed ibraahim aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo udugow ibraahim iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee koobe. saruuro aadan mursal oo joogta xerada qaxootiga ee koobe waxa ay baafinaysaa cabdikariim maxamed mursal waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan saako Soomaaliya sanadii 2015 haddaba haddii uu maqlayo cabdikariim maxamed mursal amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo saruuro aadan mursal iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee koobe. bare cabdulaahi maxamed oo joogo xerada qaxootiga ee koobe waxa uu baafinayaa isaaq hay madiiro isagoo ku sugan baladweyne 2006 haddaba haddii uu maqlayo isaaq amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo bare iyadoo waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga iyo waliye cali mataan oo joogta muqdisho waxa ay baafinaysaa wiilkeeda jaabir ibraahim khayre da'diisu waa 8 jir waxaana ugu wardambeysay 25 bishii labaad ee sanadkan haddaba cid allaaliyo cidii aragtaa waxaa si naxariis leh looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho amaba telefoonka hooyo waliye cali mataan 2526 aan ku celiyay 2526 aadan cabdulaahi cabdi oo jooga xerada qaxootiga koobe waxa uu baafinayaa cabdi cumar cabdulaahi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Sacuudiga 2006 haddaba haddii uu maqlayo cabdi cumar cabdulaahi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo aadan cabdulaahi cabdi ayadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee koobe. luul maxamuud isaaq oo joogta xerada qaxootiga ee koobe waxa ay baafinaysaa faadumo maxamuud isaaq waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan degmada diinsoor sanadii 2011 haddaba haddii aynu maqlayso faadumo maxamuud isaaq amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo luul maxamuud isaaq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee koobe. maxamed cabdulaahi muumin oo jooga xerada qaxootiga koobe wuxuu baafinaya yuusuf muumin dheer waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya 2000 haddaba haddii uu maqlayo yuusuf muumin dheer ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed cabdulaahi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga. shamse aadan isaaq oo joogta xerada qaxootiga ee koobe waxa ay baafinaysaa iisho cusmaan cali waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan degmada diinsoor sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso iisho cusmaan cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo shamse aadan isaaq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee koobe. faadumo xuseen madey oo joogta koobe waxay baafinaysaa cabdinaasir keero cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan diinsoor 2008 haddaba haddii uu maqlayo cabdinaasir keero ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo faadumo xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee koobe. wiilo isaaq cabdi oo joogta xerada qaxootiga ee koobe waxa ay baafinaysaa cali isaaq cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kismaayo sanadii 2000 haddaba haddii uu maqlayo cali isaaq cabdi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo
wiilo isaaq cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee goobe. baafinta ugu dambeysa waxay naga soo gaartay aamina xasan xuseen oo joogta magaalada muqdisho. waxay baafinaysaa wiilkeeda oo 8 jir ah aadan siidow. waxaa ugu wardambeysay 25 bishii koowaad sanadkan 2018. haddaba haddii ay jirto cid aragtay fadlan waxaa si naxariis looga codsanaya inay kusoo aadiyaan xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada muqdisho ama taleefanka hooyo aamina xasan xuseen eber 6788952 aan ku celiyay eber 6788952. baafintiina maanta waa naga intaas. caasha iyo samiir aad bay u mahadsan yihiin. anigana waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa idaacaddii uu soo saaray ciise xaaji cabdulle. intaan 5 galabnimo hadduu eeba idmo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.